السلام عليكم كلنتو عن dhageystayaal daawadayaal asxaabteena ku taxan barteena YouTube-ka King Malel Official waxaan toos idinku bilaawi doonaa maanta oo taariikhdu ay tahay 1 bisha Julaayo sanada 2020 taxanaha wararka Hindiga iyo waxyaabihii ku soo kordhay Bollywood-ka iyo saameynta ay yeesheen filimada la daawaday toddobaadkii iyo filimada soo socday iyo sida loo kala sareeyo iyo heesihii ugu qiimaha badnaa iyo waxyaabaha ay wararkii ugu dambeeyay ee filimada Bollywood-ka Hindiya ayaan idin soo gudbin doonaa waa saaxiibkeena King Malel Official hadaad nagu cusub tahay waxaan ka codsanayaa fadlan subscribe like iyo share gambaleelkuna ha ka iloobin si aad u hesho wararkeena ku saabsan Bollywood-ka iyo waxyaabaha xiisaha badan ee barteena YouTube-ka aan idin soo gelinayno haddaba maanta waxaan idin soo gudbin doonaa waxyaabihii ugu xiisaha badnaa waxaana kamid ah waxyaabaha aad ku daawan doontaan barteena YouTube-ka rugcadaagii soo rugaal celiyay Gulshan Gorver oo 3 filim oo waaweyn dhawaan ka soo muuqanaya kuwaasi oo naqanaya filimada saameynta ugu badan oo ku lahaan doona si aad ugu barateen sidii filimadii hore oo u jilayay sidoo kale waxaad ku daawan doontaan waa kuwee 10kii filim ee albumada heesahooda looga iibsashada badnaa sanadii 1998 sidoo kale waxaad daawan doontaan Janvi Kapoor filimkeeda Gunjana Saxena oo shaaca laga qaaday in barta Netflix laga daawan doono si online ah sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa wararka xiisaha badan wiilka Govinda oo shil baabuur galay Govinda oo ka cabsi qabo in wiilkiisa uu ka geeriyoodo iyo wararkii la xiriiray in wiilkaas uu la doonayay inuu ku soo biiriyo filimada Hindiga intaas iyo in kale waxaad kaga bogan doontaan barteena YouTube-ka King Malel Official fadlan hadaad nagu cusub tahay subscribe sar like share iyo gambaleelkana ka ilaabin si aad u hesho waxyaabaha ugu xiisaha badan aan soo gelinayna barteena YouTube-ka qodobkeena ugu horeeya rugcadaagii soo rugaal celiyay Gulshan Gorver wuxuu la yimid markaan 3 filim oo waaweyn dhawaana ay soo bixi doonaan qaarkoodana duubistoodu waa ay dhamaadeen balse waxaa xayiray coronavirus rugcadaaga Bollywood-ka ku faanaan Gulshan Gorver sidoo kalena Hollywood-ka in badan la shaqeeyo ayaa soo rugaal celiyay maadaama 3 filim oo waaweyn doorar adag oo ku leeyahay dhawaan la daawan doono waana arinta la wada sugayay in Gulshan soo rugaal celiyo Gulshan Gorver filimada u diyaarsan waxaa kamid ah Surya Vanshi Mumbai Saga iyo Sadak 2 waana 3 filim oo si weyn loo sugayo laba kamid ah mar hore ayaa la daawan lahaa hadii dhibaatada coronavirus dunida aysan ka dhic lahayn Gulshan Gorver wuxuu yiri filimka Surya Vanshi diyaar ayuu ahaa waana la daawan lahaa dabiiqada Marso balse nasiib daro tiyaatarada la xiriiray ayaa saameyn ku yeelatay waxaana filimkani si adag u wada xifaaltami doonaan aniga iyo Akshay Kumar anigoo door xumaanta ah ku leh iyo Akshay Kumar oo filimka actor-ka ah sidoo kale Gulshan wuxuu leeyahay filimka weyn ee Mumbai Saga isagana waa diyaar 19 bisha June ayuu qorshaha ahaa in maslaxa la saaro laakiin taasi suurtagal ma aysan noqonin maadaama tiyaatarada xiran yihiin waxaana ku leeyahay Mumbai Saga door muhiim ah aniga John Abraham Imran Hashimi iyo Sunil Shetty ama Balwan waxaan idin soo xasuusin doonaa Mumbai siday ahaan jirtay 80maadkii iyo 90maadkii tuugadii ka jirtay iyo kaalintii booliska ay ka qaateen sifeynta tuugadaas ugu dambeyntii Gulshan Gorver wuxuu sheegay in filimka Sadak 2 ah qaybta labaad filimka Sadak ee la daawaday 1990kii hidka weyn noqday duubistiisa ay wax u harsan yihiin waxaana la jelayaa filimkani Sanjay Dutt Pooja Bharti Alia Bhatt iyo sidoo kale Aditya Roy Kapoor waxaana la dhameystiri doonaa filimkan shaqada qabyada ka ah marka dunidu uu ka faaruqo cudurka coronavirus oo guud ahaan dunida babando wada saaray waxaana daawashadiisa la filayay in ay noqoto sanadkaad soo socday 2021 horaanta January balse wuxuu filimkan la daawan doonaa dabiiqada sanadkaas maadaama duubistiisa ay wax ka harsan tahay
dhinaca kale Janvi Kapoor atirishada caanka ah ee Bollywood ka sameeysa waxayna filimkeeda Gunjana Saxena la shaaciyay in laga daawan doono barta Netflix si online ah. Filim sameeyaha Karan Johar mashruuciisa uu maalgelinayo ee ah Gunjana Saxena sidoo kalena hogaamiye ka tahay Janvi Kapoor lama saari doono tiyaatarada waxaana si online ah looga daawan doonaa barta Netflix. Filimka Gunjana Saxena waxaa markii hore la daawan lahaa 24 Abriil sanadan 2020 balse taasi ma suuragelin. haatan waxaa la sheegay rajada la qabo waxay tahay bisha Julaay ee maanta kowda ay tahay in si kooban tiyaatarada loo furo. Sida daraadeedna Karan Johar wuxuu qaatay go'aan ah in uu shirkadda Netflix filimkiisa ka iibiyo dhawaana si online ah ay halkaasi ugu baahiso Netflix. Janvi Kapoor waxay filimkani ku matalaysaa nolosha gabadhii ka tirsanaan jirtay ciidamada cirka Hindiya oo la oran jiray Duuliya Gunjana Saxena oo dagaalkii Pakistan iyo Hindiya ku dhex maray Kargil kaalin muuqato ka qaadatay. waxaana filimkani doorar muhiim ah ku leh Pankaj Tripathi oo Gunjana aabaheeda ku jilaya iyo Angad Bedi oo asna Gunjana walaalkeeda ku metelaya mashruucani. filimka Gunjana Saxena wuxuu ka mid noqday aflaanta Bollywoodka ee sida online-ka ah loo daawan doono kuwaas oo tiyaatarada ka baaqdeen waxaana laga wada sugi doonaa barta Netflix waqtiga ay ku dhawaaqi doonto in si toos ah loo daawan doono filimka. aan ka gudubno dhanka filimada haddaba maxaa inoo haray heer Hindiya ama dhalinyarada u badan taabashada aflaanta Hindiga waxay aad u xasuustaan showgii ama baheesayaashii filmadii soo baxay 1998. haatan waxaan diiradda saaraynaa 10 sano fanka Hindiya ugu saameynta badnaa dhanka heesaha hirgeleen waana intii u dhaxaysay 1990 ilaa 1999 waliba xilligan Kumar Sanu iyo Udit Narayan ayaa Bollywood ka dhanka heesaha maqaam sare gaarsiiyay. sidoo kalena heesaha ay muddadaasi qaadeen waa kuwa ugu caansan loogana jecel yahay taariikhda fanka Hindiga. Sidaa daraadeed sanad walba ayaa dhexgali doona iyo filimada albumkooda dhanka heesaha looga iibsashada badnaa mar si aan iskula ogaano sanadkii 1998 aan soo qaadanay iyo filimada albumkooda heesaha looga iibsashada badnaa iyo inta koobi ee laga sameeyay. Haddaba filimka ugu horeeyay Kuch Kuch Hota Hai aad bad wada taqaaniin wuxuu soo baxay 1998 waxaana filimkani jilaya Shah Rukh Khan, Kajal, Rani, Anupam Kher ama Abaska iyo Farida Jalal iyo aktar kale. Salman Khan ayaa ku leh door mahadcelin ah. Filimkan heesihiisa waa heesaha loogu jecel yahay xilligaasi waxaana laga sameeyay koobi dhan 8 milyan iyo 500,000 oo koobi ah waana filimka heesihiisa loogu iibsashada badnaa 1998. waxaa ku xiga oo filimka labaad ah Dilse waa filim oo jilayo aktarka Shah Rukh Khan iyo atirishada Manisha Koirala aktar kale ayaana ka soo muuqanaya. filimkani Dilse waxaa heesihiisa ay ahaayeen heesaha looga iibsashada badnaa oo kaalinta labaad galay waxaana laga sameeyay 4 milyan iyo 500,000 oo koobi heesaha albumka filimkani. sidoo kale filimka saddexaad waa filimka la yiraahdo Soldier qof aanan garanaynin malaha Soomaalida ama dhalinyarada ku taxan aflaanta Hindiga. Soldier waxaa jilaya Bobby Deol, Britisen iyo sidoo kale Suresh Oberoi ama Jackson siday dadku u yaqaanaan iyo aktar kale. Haddaba filimkan heesiis waa heesaha ugu fiicnaa. filimkan hit ayuu noqday wuxuuna hit ku noqday heesaha filimkan uu ku jiro 3 milyan iyo 500,000 oo koobi ayaa laga sameeyay albumka heesaha filimkan Soldier waana filimkii saddexaad ee heesihiisa loogu iibsashada badan yahay. filimka afraad waxaa ku jira Pyar To Hona Hai waa filimka ay wada jilayaan lamaanaha aadka aad u wada taqaanaan ee Ajay Devgan iyo Kajal waana filimka la yiraahdo filimka Lulka oo Ajay oo ku jilayo Took isla markaana Kajal jaceelka ay u qabto Ajay dartiisa baxarku ku jiro hantideeda dhan ay ugu badbaadinayso. Pyar To Hona Hai waxa uu albumka heesihiisa la koobiyay 3 milyan iyo 500,000 oo koobi ayaa laga sameeyay waana filimka afraad ee heesihiisa
loogu koobiyada badan yahay ee loogu jecel yahay dalka Hindiya sanadii 1998. Gulaam ayaa kaalinta shanaad ku jira 2,500,000 oo koobi ayaa laga sameeyay. Gulaam waad wada taqaanaan, Amir Khan iyo Rani ayaa wada jiraya. Dag the Fire ayaa kamid ah. Dag aad ayaa loo wada yaqaanaa. Sanjay Dutt ayaa jilaya. Jiranjur Singh ayaana sidoo kale filimkani jilaya aktarka labaadka ah. 2,200,000 oo koobi ayaa laga sameeyay filimkan. Hum Aapke Dil Mein Rehte Hai. Hum Aapke Dil Mein Rehte Hai filimkan waa filimka toddobaad ee albumka heesiisa loogu jecel yahay. Anil Kapoor iyo Kajal ayaa jilaya filimkani. Waa filimka kontraada halka sano la galay Kajal, halka sano guurka kontraadka la galayo. Aad baad u wada taqaanaan. waxaana filimkani heesiisa la koobiyay ama koobi ahaan laga sameeyay 2,200,000 oo koobi. waana filimka toddobaad ee albumka heesiisa loogu jecel yahay 1998. Major Saab ayaa kaalinta 8aad ku jira. Ajay iyo Caldheer ayaa filimkan hogaaminaya. 2,200,000 oo koobi ayaa laga sameystay heesaha albumka filimkani. Major Saab 1998 ayuuna soo baxay. Jab Pyar Kisi Se Hota Hai. Salman Khan iyo Twinkle Khan ayaa wada jilaya. Amadiya ku jiro. Abaska ayaana sidoo kale qayb ka ah. waxaa sidoo kale filimkani qayb ka ah cunuga uu dhalay Udud Naarayan ee la yiraahdo Aditya Naarayan ayaa ku jira. waa cunuga yar ee Salman Khan filimkan ku metelaya inuu asiga dhalay. Jab Kisi Se Hota Hai waxaa laga sameeyay albumka heesiisa 2 milyan oo koobi. wuxuuna ka mid noqday 10ka album ee 1998 loogu iibsashada badan yahay. filimka 10aad ee albumka heesiisa loogu iibsashada badan yahay waa Dulha Raja. Dulha Raja waa filim shactiro badan dad badan ugu qosliyay 1998 waxaana jilaya Govinda iyo Qadar Khan iyo soo kale Ravina Tandon. filimkan heesiisa waxa iyana ay noqdeen saha albumkooda loogu jecel yahay 2 milyan oo koobi ayaa asna laga sameeyay. haddaba aan dib idin xasuusiyo aan idinka raali geliyo filimka Hum Aapke Dil Mein Rehte Hai halka idin dhahay 1998 ayuu soo baxay. waxa uu filimkaas soo baxay 1999 inkastoo uu tiyaatarada la saaray 1999 laakiin shaqada duubistiisa ay dhamaatay 1998. haddaba isla heesaha inagoo ku guda jirno waxaa jira abaalmarina sanad kasta la bixiyo dhanka heesaha. haddaba albumka ugu fiican 1998 Filmfare waxaa ku guuleystay albumka Dilse ee uu sameeyay ee Ar-Rahman. heesaaga ugu wanaagsan isla sanadkan waxaa qaatay Sukhwinder Singh. Dilse ayuuna ku qaatay. heestii wuxuu ku qaatay Tanya. aad baad u dhageystaan sidaan u maleynayo. sidoo kale dhanka fanaanada ama heesaaga dhanka haweenka ah ee sanadkaasi 1998 waxaa qaadatay Jasbinder Narula. waxayna ku qaadatay Pyar To Hona Hai Tha 1999 ayayna ku qaadatay. intaas ayaan ku soo afmeeraynaa wararkii ugu dambeeyay ee filimada Hindiga iyo heesihii ugu fiicnaa 1998 oo aan idinla wadaagnay. fadlan haddii aad nagu cusub tahay adigoo raali ah oo ka codsanayno waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe saarto, like-tana noo saarto, share-tana asxaabtaada la wadaagto, gambaleelkana aad furato si aad u hesho wararka iyo waxyaabaha xiisaha badan ee aan soo gelinayno barta King Malel Official.